fanka sharaftiisu wuxuu ahaa wixii ka horeeyay sagaashameeyadii wixii ka dambeeyay waxay ahaayeen Anna Waykan maadaama Anna Waykan ay ahayd qofka fanka ku jira maanta oo fanaan ah ma la oran karo waxa weeye heer buu ka gaaray lama oran karo waxa la oran karaa uu dambaab در إلهي بانقبح أنا جعلستي معني وفهم وايه معني وفهم وايه معني وفهم وايه معني وفهم وايه ويفعنا وايه أنا در إلهي معني وجعلستي ناس كقبحه هذا كسوقات فنانين قريب كمذا وحقيقة هيس كريجايان نفس نحلي وادي جالسة نجسيه قرموكا نذريه فتالك نحلي وادي جالسة وحاسس ما إلهك يسمع وعيد توصى فانكو ساس معهين فانكو قيمي سهرولها وكتكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبان دي سلام يا أمر لبعض يسوس نقضو نكسن وحنا هنبري أدري يا ولا شيء حمدة أو فانكي سقب حضي أدبان المحان لي هاي إلهي سبحانه وتعالى ها أكو فضي نرشتكو هرتي حمدة مركان أركي كبحتان كذي فانكا وانكو فرحي وهي قفل بقى فانكا كتيرا مال إنو كبحي أمبان أوغهي dad waaweyn oo mataqaanaa fankii ugu horeeyay way ka baxeen xamda waxaan leeyahay go'aanka aad qaatay waa go'aan geesinimo leh waa go'aan karti leh waa go'aan sharafeed waxaan ku leeyahay walaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta noloshaada ka dhimana farxada kugu dhameeyo fanaaniinta kalena waxaan leeyahay insha Allah idinkuna waad ku daba xigtaane soo dhaqsada markii intayna u gudagelin bal aanu video wada daawan fanaanada Xamda Cabdilaahi Xasan Xamdayar oo ahayd xidigaha muddooyinka ugu dambeeyay safka hore kaga jiray fanka Soomaalida isla markaasina kamid ahayd gobolada iyo heesaga da'yarka ee fankoodu uu soo shaabaxay sanadihii la soo dhaafay ayaa shaacisay inay gebi ahaanba iskaga baxday fanka fanaanada Xamdayar ayaa waxa ay kamid ahayd fanaaniinta fankoodu uu ku soo shaabaxay magaalada Hargeysa bis 4 sano ee u dambeeyay waxa ay ku sugnayd magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyadoo ay xusuus mudan tahay in toddobaadkii u dambeeyay ay showgeedii u dambeeyay ku qabatay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland haatan qadka telefoonka ayay si toos ah ugu jirtaa Xamda waa kugu soo dhaweynaya telefishinka bulsho balaga horeyn faahfaahin naga sii ee arrintan aad shaacisay walaal macaan horta aad baan santay waan dhawhay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waa salaamaya arrintaas waa run waan ka baxay fankii ilaahay baan uga baxay alxamdulillah ilaahay baa mahadsan maxaa la gaar ahaan waxaan ka mahadcelinay waalidkayga oo markasta garab taagnaa oo ii ducaynayay Xamday maxaa sabab u ah baad oran kartaa inaad maanta shaaciso inaad fankii ka baxday wallahi wax dhibaato ama caqabad ii timay jirin aba wax aan arkay wax dhiba dar ilaahay baan ku baxay anaa jeclaystay macnaheedu waa fahmi waaye way fiicnaan waaye anaa dar ilaahay macnaheedu u jeclaystay inaan iskaga baxo wala iska wada ogeeyay fanka faa'iido ma laha marka hore qofkii soo galay qofkii baa la dana dib uga laabtay macnaheedu markaan laakiin dad badan waxay isweydiin karaan toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii showgaaga u dambeeyay aad ku qabanaysay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sidee isu qabanayaan arrimahaas waa easy way isqabanayaan marka waxa rabay intaana ba showgaas qabanin inaan ka baxo waayo blooyinkan dhanba waa la jiray laakiin halkaas macnaheedu dad ka hor iga codsaday baan u sameeyay codsigooda maadaama codsigooda u sameeyay ana markii dambe waxaan go'aan ku gaaray macnaheedu aan codsigoodii fuliyay anigana inaan waa rajadeedii aan gaaro aan sameeyo waxaan aniga niyadeyda qalbigayga u rabay markaas aan sameeyay bal Xamday si kooban noola wadaag waqtiga aad fanka ku soo biirtay iyo waqtiga aad ku jirtay taariikhdaada faneed walaal waxaan ku soo biiray 2014 bishii 8aad adiga 15kii baa fanka toos u bilaabay waxaan ka baxay 2020 bisha October 10keedii ayaan ka baxay fanka maxay tahay fariinta aad u dirayso taageerayaashaada iyo waliba asxaabtaadii hore ee fanka horta aad iyo aad baan u faraxsanahay aad baan u salaamaya waxaan dirayaan waxa weeyaan waxaan leeyahay marka horeba maadaama taageeriseen oo waxaan ku yiri aad sacabadmiseen maantana khayrkii wanaagan isku taageerno aan xamdoon baan ahay baan joojiyay halkii baan taaganahay laashin baan ahay Xamday maxay tahay fariinta aad kula dardaarmayso hablaha da'yarta ee haatan u sii holanaya inay fanka ay galaan maxaa si adigu aad ka dheeftay aad iyaga la wadaagi kartaa marka aniga aan galay fanka laga joojinayo kulay aniga
ma aaminsanayn macnihii wuxuu yahay ee layga sheegayay laakiin markasta waxaan leeyahay ilaaheedii ka madoobeeyo faa'iido malahan magac bas ka dhaxlaysa wax kale ood ka dhaxlaysa fanka habeerata ma jirto ma fahantay marka inta waxaan sadahay alwayarta sahay ka faa'iideyso fursada ku banaan ilaahdu toobad celi oo ilaahay ku abo asaas tahay in way iyagana waxa leeyahay xukuumku ina waxbarashadiiniyo iska wataaween kale xamday mar dhowra waxaa la arkaa fanaaniin sheega ama shaaciye inay fanka iskaga baxeen oo haddana ka soo muuqda dib uga soo muuqda masraxyada iyo fagaarayaasha fanka ma dhici kartaa in mar kale la arko xamde oo fagaarayaasha dib uga soo muuqata maya hadda fursad haystay soo moogid haddaan rabo inaan fanka jiro hadda fursad haystay haddaan ku sii jiri lahaa laakiin waa go'aan qaatay taasi mana laga yaabo inaan ku soo ugu dambeyntii xamda muddooyinkii u dambeeyey fanaaniinta Soomaaliyeed waxaa soo badanaya fanka ka tanaasulaya amaba iskaga baxaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey xidigii fanka ugu caansanaa Soomaalidu qaar badan oo kamid ay shaaciyeen arintan maxaa u sababaad oran kartaa kulli wal ogyahay hadan la iska tuuray meesha qayb ku joogaalo fanka inuu faa'iido lahayn qof walba ogyahay qofkii damiir oo maskax aqli leh uu garanayo wixii u fiican markaas saas laajigeed qofkii isaga dintiisa garanayo uu sameeyaa wixii isaga u fiican taas weey aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay taasina waxay ahayd fanaanadii hore Xamda Yar oo haatan sheegtay isla markaasina shaacisay inay fankii guud ahaanba ay soo afmeertay xamdi aad baan kaaga mahad celinaa ما شاء الله تبارك الله فنانين واوين باهرتيد كبحي سيدا عبد هاني أحمد بيف أو لبحي هذا أحمد خير ما شاء الله تبارك الله فنانين كلا كوري إن شاء الله وحن لنا هاي مدول بقى إنك استودي فانكو وقفل بهبي يسوي هاي أما أو يهاي وحسك أو جالسو واحد بدنا على وقبين سيدا نقولنا فنانين تا واحد كما أي هرا فان كرتم كلا هذا ما قع وحنا هاي كم فائدة فنان تاجره ولقى مارت أضو سويدين سؤاشس فنان تاجر ولقى مارتي فنان قناع صلاة أدو ولقى مارتي فنان أدو ما أركتي بيسنس مان مايا فانك وحا قلب السيدة عادي ما كنت لقى هذا ذاتك قفك أقول ليتا يعني فن هير لقى مقارو وين قص قفك لو قص حي هاي ما كان هبي أهم وقل كلا لكن كدي هدي بحانا شرف عبد الفتاح يري ما شاء الله وهذا وداد كسكو بدليبه سيدنا أقولنا في داش سؤال هاينو كل فانكو سيدو أتكو أكتين إذن كبا وحبر لقى مقاضة كبا سوق هذا الفنان با شوق بسنة يو كله waxaa laga yaabaa showga marka uu qabanayo ugu yaraan ilaa 10 qof inuu mataqaana kharash galeeyo kharashka ka soo baxana ay wada qaybsadaan waxaa laga yaabaa aniga oo kale ba meel ay furan tahay fanaan baan u yeeranayaa waxaan leeyahay wixii caawa habeenka ka soo baxa meeshaas baan wax ka siinayaa percentage ama 10% waa magaalo gal waxna fila ma fanku fan waa wuxuu ku fiican in hobby qofku uu ahaado maahane qofna horumarka ma gaaro sida xaqiiqda حمدة يار وي ما شاء الله فنان عد معان عطولمون عد كيد ميل هيسيد ميل فعن أي قارين أو رنتي مكان لقى هالله أنا قدرنا بهاي سيدا أخايتا قف ولا بشو مركو قبصنايو وحبا كما صبحان فانك سيسا فانك شرفتي سو وحو أها وحي كوري سغاشا ميدي وحي كدن بيه وحي أهاين أنا ويكن ما دام أنا ويكن أي أهين قفك فانك وشيرا ما أنت أو فنان ما لا أوران كرا وحوي هرب بوك جاري لما أوران كرا وحلا أوران كرا ودن باب أنا عندي وقفين لكن حقيقة كهلايا فانكو وحو أها وحي برسمات كي كوري وحي كدن بي وحي أهاين أنا ويكن إيو إري لو كدري يشيكو marka maadaama sheekadii iyo wixii iyo problemkii iyo wixii ay ka dhex baxday waxaan ku leenahay hambalyo fanaaniinta kale oo ayaga sidoo kale ah waxaan jeclaan lahaa in ay ayaga isaga baxaan hadda ka soo qaad fanaaniinta qayb kamid ah waxay heeska dhigayaan nafsi naxli waadi galise najsiyohow qarmuunka nadariyohow fataalka naxli waadi galise waxaas ma ilaahay hees maaha waa cay toos ah fanku saas ma ahayn fanku qiimihiisa hore u lahaa uu ka tegay marka hadda wixii dambe oo sheekada ahaa hadda isaga baxday waxaan leenahay walaasheen hambali waxaan ku leenahay ilaahay noloshaada dambe iyo mustaqbalkaaga dambe ha ku hagaajiyo sidoo kale waxay hadalkeeda ka mid ahaa
fanka aniga waan ku wareeray sida inaad maqasheen wada arki doo qoraalka video wada daawateen saan jeclahay wax faa'iidana kama helin waa ku wareeray marka qofku leeyahay yani haykalkii iyo wadadii uu socday baan fahmi waayay u badada marka walaasha xamde waxaan leenahay maadaama afankii qaylada ahaa iyo buuqi iyo sheekadii aa isaga baxday hadda waxaad haystaa wada ka wanaagsan wadadaas codkaagana weli waan u baahannahay wax wanaagsan kusoo gudbi bulshada usoo yani sidii lagu bartay wanaag u bedel ha ka tegin sida social media ha ka maqnaan oo ha ka tegin kaliya waxaanu kaa rabnaa in aad wax walba oo fariin kasta oo wanaagsan aad awoodid aad nala wadaagtid waxaanu kaa codsanaynaa ama aan kaa sugaynaa in aad xataa quraan challenge a samaysid insha allah si fanaaniinta kalena ay kugu daydaan waxaan ku rajaynayaa horumar waxaan ku rajaynayaa caafimaad tiro badan adiga iyo kuwii ka horreeyey sida cabdihani cabdi fatax yare axmed khayr sidoo kale waxaan leenahay ilaahay cimrigiina ha dheereeyo wanaaga aad qaadateena ilaahay ha idinku duweyna waxaan leeyahay hanuunka isagaa leh ilaahay ha idin siyaadiyo fanku waa hobby waxa weeye waa farxad qofka asagoo muslima oo uu haddana haysi karaa sida fanaaniinta qaarkood ay sameeyaan waxaan leeyahay halkaas dami ma aadan gelin laakiin hobbigaagii oo aad ka dhabaysay oo haddana aad mataqaanaa aad iska daysay mooye diintii kamaada bixin waxaan ku leenahay caafimaad farxad iyo barwaaqo ku rajayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu